Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Warar aan helnay oo aan si rasmi ah u xaqiijin ayaan rabaa in aan halkan idinkula wadaago. Sidoo kale waxaan idiin ballan qaadayaa wixii kale ee macluumaad ah oo isla arrintan kusoo kordha in aan halkan idinkugu soo gudbin doono. Xildhibaanka mucaaradka ah ee la yiraahdo Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee maamulka gooni isu taag ee Somaliland ayaa lasoo tabinayaa saacadihii lasoo dhaafay in xaalad khatar ah oo halis ah uu ku jiro. Waxaana wararku ay sheegayaan in la sumeeyay oo cunto uu cunayay wax u eg sun loogu daray. Anaga ma xaqiijin karno sax ahaanshaha in sun loogu daray iyo in kale, iyo in xaaladiisa sida lagu sheegayo aysan ahayn. Ha yeeshee waxaanu adeegsanaynaa ereyga ah ee saxda ah in sida la sheegay ay jirto xaalad khatar ah oo halis ah uu ku jiro ninkan xildhibaanka golaha wakiilada ee Somaliland ka tirsan lana yiraahdo Maxamed Abiib. Xildhibaankan sidaad ogtiin wuxuu ahaa xildhibaan mucaarad ah oo kasoo horjeeday nidaamkii hore ee Muuse Bixi Cabdi. Waxaana xusid mudan sidoo kale in dhowr jeer xabsiga loo taxaabay oo lagu eedeeyay khiyaano qaran, burburin iyo sidoo kale in uu ka tallaabay xeyndaabka maamul goboleedka Somaliland. Haddaba marka aan leeyahay Somaliland maamul goboleedka waxaa sidaasi tiray oo u aqoonsatay dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana sheegtay in qayb ka mid ah Soomaaliya ay tahay. Waxaana warkaasi bishan gudaheeda yiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xildhibaanka waxaa la sheegay in uu ku jiro isbitaal oo xaaladiisa lala tacaalayo, lana aaminsan yahay in sun loo soo dhexmariyay cunto uu cunayay, iyadoo aan si cad loo sheegin cidda rasmiga ah arrintaasi ka dambeysa. Ha yeeshee xubno eheladiisa ah iyo kuwa kale ayaa sheegay in loo adeegsaday dowlad Afrikaan ah oo ay ula jeedaan sida ay sheegeen dowladda Jabuuti. Waxay leeyihiin waxaa arrintan ka dambeysa dowladda Jabuuti oo ninkan xildhibaanka ah ama ahaaba loo adeegsaday in suntaasi cuntada loogu daro. Ma aysan sheegin sababta arrintaasi keeni karta iyo waxa ay ku tuhmayaan dowladdaasi iyo xaaladiisa sida hadda ay tahay iyo sida ay ku ogaadeen in sun loo adeegsaday. Haddaba warkaas ayaa saacadihii lasoo dhaafay aad u qabsaday baraha bulshada oo xildhibaankan iyo xaaladiisa ku saabsan. Haddaba wixii isla arrimahan oo hadda qayb ka mid ah aan idinla wadaagay kusoo kordha oo arrimaha Somaliland ku saabsan, gaar ahaan ninkan xildhibaanka ah ee xaaladiisa ku saabsan, waxaan idinkula wadaagi doonaa isla bartan oo aan diyaar u ahay in aad ka heshaan xogo iyo macluumaad kala duwan oo xasaasi ah oo dhinacyo kala duwan taabanaya. Waxaase kaa codsanayaa in aad muuqaalkeena sii gudbiso, like garayso, share garayso oo aad la sii wadaagto asxaabtaada. Nabadgelyo.